kahor dardaarankiisii xalay ee in ka badan 50,000 oo qof ay la ilmeeyeen waxaa ka horreeyay inuu iila soo sheergareeyay mid ka mid ah heesihiisa ee ka hadlaysa koobnaanta adduunka qofka aan saaxiib badan u haysanna waa xaalad adag safarkaasi aakhira kala kulmi doono isaga oo linkiga YouTube-ka heestiisa soo sheergareeyay kuna soo qoray assalaamu calaykum tani ma ahan hees erayada qaata muusigan ayaa la raacin safar baa la tagayaa iyo socodka dheero soo noqon lahayno ina wada sugaaye ninkase afweeniyo aanu wadani sahay badan kama samadka baxaye sidee loo jumalayaa shalay gelinkii dambe ilaa iyo waqtigan qof kasta waxa uu isweydiinayaa siday iminka tahay xaaladda fanaanka weyn ee Idlayare kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladiisa caafimaad aysan ahayn mid hagaagsan mar kalena ay xaaladdu ka sii dartay markii uu bartiisa Facebook xalay ku soo qoray erayo qalbi jab ah oo ilinta la ceshan waayay fadlan muuqaalkan like garay oo sii share garay si dad badan ay u arkaan sidoo kalena muuqaalada ka turjumayay Idlayare iyo xanuunkiisa madaxda dalka ay u arkaan si ay kaalin weyn uga geystaan garab istaaga Idlayare mahadsanid waa xanuunto timaha iga haado waa fahamtayna timaha iga haado waa ka timay haafaf buladu waa sana maqan way iga haada marna way soo badan hada xamar ka baqato ku qota timaha fuuli noqonayaan laakiin waxa iftiimiso buladu hada way soo weynaatay xilid buu ka foqdo laakiinse wali yani effect waa saamgarad xalay waxa ay ahayd habeen qof kasta uu ka naxay erayada uu kula dardaarmay ilmihiisa Idlayare isaga oo leh alla ayaan idinkaga tegay ilmahayga balse dadka qaar ma oga in Idlayare 3 maalin ka hor uu muujiyay fariin kale oo tilmaamaysa inuu aakhire isku diyaariyay markii uu codsaday in iyadoo muusiga la iska indhatirayo la dareemo kaliya micnaha ku jira erayada heestan taasi oo ah mid ka turjumaysa maalinta aakhiro iyo xisaabta dadka oo dhan sugaysa qof kasta oo bini aadam ah oo inaga mida waa uu dhiman doonaa geeriduna waa xaq balse bini aadam ahaan uma samaysnin inaan geerida isku diyaarinno ama aynu muujinno fariimo inaga yeelay inaan dadka tusno inaynu ka tegayna dunidan maalmaha kooban ah isagoo uu muujiyey in qof walba uu qabriga u socdo la dhiman doono su'aalna ay sugayso qof walba oo dunidan jooga qofka aan saaxiib badan u haysanna waa xaalad adag safarkaasi aakhira kala kulmi doono isaga oo linkiga YouTube-ka heestiisa soo sheergareeyay kuna soo qoray assalaamu calaykum tani ma ahan hees erayada qaata muusigan ayaa la raacin heestan waxaa hore u qaaday allah u naxariistay Cabdiqaadir Sanka Idlayare ayaana 2014 dib u soo qaaday adiga ahaan si fiican u dhuux erayada heesta oo raacin muusiga safar baa la tagayaa iyo socodka dheero soo noqon lahayno ina wada sugaaye ninkase afweeniyo aanu wadani sahay badan kama samadka baxaye sidee loo jumalayaa sukiyo xidaalka soryeeya malaho saaxiibka rumaado saacida ma joogo sabadka yaalo kusii hoyadka malaho marka si dhaba loo eego heestan erayada ku jira waa kuwa xaqiiqatan ka turjumaya in nolosha dunidu ay kooban tahay qof walba dunidan joogana uu safar yahay aakhirana loo socdo marka ay isdul taagto Idlayare oo u jeediyay dareenkiisa oo dhan maalinta aakhiro iyo inuu qabri u socdo waa fariin kale oo tilmaamaysa inay qasab tahay inaan u duceyno marhadan daabiyo taariikh lahayno marhadan daabiyo taariikh lahayno ina dibadda ijirine dollar iimaanayn danyar igu xisaabo jihada kale marka la eegana Idlayare ma ahan qof hadda dadka ka codsanaya inay caawiyaan laakiin dhammaanteen haddii aan Soomaali nahay madax iyo shacabba waa inaan garab istaagno walaalkan Idlayare oo aad u xanuunsanaya weliba ah aabbo korsanaya carruurtiisa keligii una ah aabbe iyo hooyaba si gaar ah madaxda dalka gaarsiiya xaaladda aabbahan Soomaaliyeed ee ka mid ah shakhsiyaadka ka dhex muuqda bulshada dhexdeeda hadda inta uu nool yahay
ayaynu wax u qaban karnaa si oo noqon doonta wax wanaagsan haddii uu dib u soo kabto wiilkan dhallinyarada ah. ilaa dhammaadka haddii aad nala joogtay, fadlan muuqaalkan laagareey oo sii sheergareey si dad badan ay u arkaan, sidoo kalena muuqaalada ka turjumaya iidlayaraya xanuunkiisa madaxda dalka ay u arkaan si ay kaalin weyn uga geystaan garab istaagga iidlayare. mahadsanid.